dugsiga Hormuud ayaa munaasabad dhiirigelin u qabtay Maxamed Yoonis Cumar oo kamid ah 10kii arday ugu sareeyay imtixaanka shahaadiga dugsiyada hoose dhexe ee Soomaaliland oo lagu dhawaaqay toddobaadkii la soo dhaafay. Munaasabadan oo ka dhacday gudaha dugsiga Hormuud oo ku yaala waqooyiga Hargeysa waxaa ka soo qayb galay maamulka, macallimiinta, ardayda, waalidiinta marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Cabdilaahi oo ah maamulaha dugsigaasi wuxuu ka waramay guusha uu soo hooyay ardaygan kamid ah 10ka arday ee ugu sareeyay imtixaanka shahaadiga dugsiyada hoose dhexe ee Soomaaliland. wuxuu tilmaamay tayada waxbarasho ee dugsiga Hormuud oo uu tilmaamay inay tahay dugsiyada ugu waxbarashada wanaagsan ee Soomaaliland ka jira. ujeedada xafladda maanta aan u qabanay waxa weeye guulihii iskuulka Hormuud uu ka keenay ama ku soo hooyay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dalka iskuulada hoose dhexe ayaan xafladdan maanta u qabanay. imtixaankaas oo sanadkan u dhacay si cadaalad ay ku jirto isla markaana la ilaaliyay qishka iyo waxyaabihii moobilada la iskugu gudbin jiray, taas oo markaas suurto gelisay in maanta iskuulo badan oo marka hore shaashada ku jirin ay shaashada soo galaan, isla markaana dhiiranaan samaysay. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan macallimiintii galaas 8 u dhigi jirtay ee heerka maanta ay taagan yihiin soo gaarsiisay ee iyagu dhiigoodii dhacaankooda u shubay inay maanta uu Hormuud ka mid noqdo top 10ka ama 10ka Soomaaliland u sareeya, isla markaana uu Hormuud ka mid noqdo labada iskuul ee u sareeya gobolka Maroodi Jeex oo ah iskuulka Nuuridiin iyo iskuulka Hormuud 10ka Soomaaliland u horeeya dugsiyada dhexe. ardayga Mr. Maxamed Yoonis Cumar Abdi Xakiin Abdi Maxamed oo kamid ah macallimiinta dugsigaasi wax ka dhiga muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa ka waramay ahmiyadda ay u leedahay dugsiga Hormuud guusha uu soo hooyay Maxamed Yoonis Cumar iyo dadaalkii ay geliyeen macallimiinta wax uga dhigi jiray dugsiga Hormuud. magaca iskuulka Hormuud macna ahaan Hormuud magaciisu waxa weeye inuu Hormuud u yahay dhammaan tusaale ahaan dugsiyada iskuulada oo dhan marka la eego akhlaaq ahaan iyo aqoon ahaan. arday kasta oo Hormuud ka baxayna waxa lagu xantaa inuu yahay arday akhlaaq leh marka wanaga naga gudbo, sidoo kale waxa la isku tilmaamaa inuu yahay arday markaas aqoon leh. marka hambalyeynaya ardayga galay marka kaalmaha ugu sareeya ee noqday labeenta dugsiyada waa Maxamed Yoonis Cumar. intii munaasabadu socotay waxaa qadka telefoonka ka soo qayb gashay mulkiilaha dugsiyada Hormuud Marwo Faysa waxayna ku dhiirigelisay ardayga guusha u soo hooyay dugsiga Hormuud inuu halka dadaalka ka sii wado. Maryan Aadan Cumar oo ah ayayda Maxamed Yoonis Cumar ayaa gabay ducaa halkaasi ka tirisay oo ugu tala gashay dugsiga iyo ardayga. ilaahay haydin guuleeyo oo dhammaantiin baa haydin wada gargaaro. ilaahay idamkiisa ardaydana waanu ducaynayaa dhammaantood. maxamed iyo daadiisana aad baan ugu sii ducaynayaa. waxaan leeyahay ilaahay haydin ilaaliyo wixii xun oo dhan Allah idinka ilaaliyo. maxamed gaar ahaan waxaan leeyahay waan ku ducaynayaa ilaahay ha ku daryeelo, diinta ha kugu duwo oo ha kugu adkeeyo insha Allah bismillaahi kariim. laba kelmadood oo qoro ducaa baan oranayaa. waxaan leeyahay yaasiin kaan ood kaaga dhigay, البقران جوجل كاغا دغاي اسمادان كوغو هاغوغاي قافيادان كوغو البابي ilaah baan ku bariyay inay caawri balaaw. Khadar Maxamed oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsigaasi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. wuxuu tilmaamay tayada waxbarasho wuxuuna aad ugu mahadnaqay waalidiinta, ardayda iyo macallimiinta. su'aalo badan baan weydiinaa markay imtixaanka qaranka galaan. waxaynu u yiraahdaan macallin malaha adigaaba diyaariyay imtixaanka qaranka oo su'aaliyaadna weydiisay baa ku jira. su'aashaas ay yiraahdaan waxay noo muujinaysaa in dhammaan casharka su'aalihi muhiimka ah ee concept-ka ardayga laga rabay inuu ka qaato oo macallinku khibradiisa darteed kaga soo saaray, taasina ay iswaafaqeen in ay su'aalihi u jilicsanaadaan kadibna uu qaato ardaygii inuu macallinka laftarkiisa soo diyaariyay su'aalaha. dugsiga Hormuud ayaa abaalmarin heerkeedu sareeyo guddoonsiiyay Maxamed Yoonis Cumar oo kamid ah 10kii arday ugu sareeyay imtixaanada shahaadiga dugsiyada hoose dhexe ee Soomaaliland. isagoo dareenkiisa cabiraya Maxamed Yoonis Cumar waxa uu yiri waa maalin aad nagu qaaliya arnigii ardayda galaas faawanka. waxaan naga sheegaya dareenkayga in aad maanta ku faraxsanahay. maantana aad qiimo nagu leedahay. farxadana ilaa mustaqbalkan xasan doona.